waxaan ka dhashay qoys Soomaaliyeed oo danyar ah. Aabahay wuxuu ka tirsanaa xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan ku dhashay xerada caanka ah ee lagu magacaabo Xalane ee ku taalla koonfurta galbeed magaalada madaxda Soomaaliyeed, Muqdisho. Waxaan ahaa cunugii u horeeyay haddana u dambeeyay ee reer ku dhalay. Markaan gaaray 7 sano baa dugsiga Quraanka la geeyay. waxaana la ii geeyay macallin shide oo lagu yaqaano carab-fudeed Qur'aan iyo carab-cadaadin. laakiin fikraddaas waxay noqotay barkumataal. 6 bilood markaan dugsigii ku jiray, aabba nuurigeedii baa booqasho ku yimid dugsiga, waxaana farta laga saaray warbixin aanan ku farxin, taas oo ah inaanan xitaa alif wax maleh si fiican u aqoonin. odaygii isagoo naxdin darteeda cagaha qaadila buu xaggii guriga jiray u luuday. aniguna anoo caloolxumo la madoobaaday baan ka daba nukaxsaday. aabba nuurigeedii isagoo waqti dhumay buu hooyo cubtan gooni halhalooy u gudbiyey wixii maanta dugsiga ka dhacay. hooyo cubtan waxaa lagu tilmaamaa qof sharaarad kulul. waxaa kaloo la sheegay inay kuleelkaasi ka keentay aabbaheed gooni oo allaha u naxariistee nin guracani lagu sheegi jiray sida magaciisa ka muuqata. markay maqashay warkii dugsiga ka yimid bay carow dartiisa la madoobaatay oo haddana la gaduudatay. waxayna ku dhaaratay in beri subax iyada iyo macallin shide loo kala bixi doono. wuxuu waagu dheeraadaba markuu waagu baryay bay gacanta igu dhegtay oo intay ila laba lexaasatay dugsiga afka iiga shubtay. laakiin iska daa ciday ku qaylisay, iyadii baaba canaad dhagaha loo saaray. markii macallin shide sidaana u tiraabay, haddii allaha alla yahay ardayda iiga fogey wiilkan munaafaqa ah ee aad gacanta haysato ma aha nin qur'aan raba, umana eka ilmo ka soo baxay guri qur'aan laga rabo. 6 bilood baa laga joogaa markii aad ii keenteen, welina alif ma yaqaan. idinkuna halkaas sano soomiina booqan. waa wiil aan weligay isagoo kale arag. iska daa inuu waxaan u sheego baltee isagii baa rabaa in aniga iyo ardayda kaleba uu wax u sheego. dantu waxay dhaafi weyday inaan gurigayagii ku soo noqonno annaga oo eeg badani dusha ku sidanna. dugsigii halkaasaan uga haray. taasuna waxay ii ahayd farxad iyo reerreen weyn, laakiin iima ahayn guul weyn ee aan gaaray. muddo 2 bilood ah baan qofna qof la hadlin. aabe shaqadu u kallahaa, hooyana suuqay u kallahdaa, anna inaan ciyaal bacaadka banooni la ciyaaro baan u kallahaa. taasoo ii saamaxday inaan saaxiibo badan oo weliba xunxun kasbado. bishii 3aad baa xaaladaydii la isweydiiyey, waxaana soo baxday inaan dhowr tallaabo xagga xun u qaaday. waxaan ku farq xirtay saaxiibo aan suubanayn. waxaan bartay sigaar dhuuqista. waxaan kaloo bartay dibad seexadka. wiilka aan kaga dayday sigaar dhuuqista waxaan jeclaystay marka uu sigaarka dhuuqayo siduu surka u dheereeyo, iyo markuu qiiqa afuufayo siduu indhaha u qalluucinayo. subaxyada ka mid ah baa aabbe iyo hooyo gacanta i qabsadeen oo iskool igula go'een. markaan gaarnay iskoolka waxaan indhaha ku dhufannay feel dheer oo loogu jiro xafiiska maamulaha iskoolka. waalidiintii waa ay ka naxeen oo waxay dareemeen in iskoolku biyo waa yahay oo boosba laga waayi karo. laakiin anigu waan ku farxay arrintaasi, oo haddii iskoolka boos laga waayo waaba saan rabay. aabbahay oo markaasi labisnaa dareyska ciidanka baa maamulihii sidaan ula hadlay. maamulow, waa ii muuqataa in baahida carruurta ay ka badan tahay awoodda iskoolka, laakiin 3 arrimood oo aad wiilkaani iiga qabato baan kuu sheegayaa. wiilku waa miday carruur kalama qabno. anigu berri baan beddel u ahay meel dalka dibaddiisa ah oo dowladdeedu dowlad kale ku caawinayso. haddaan wiilkaani ka tago isagoon iskool ku jirin, waa hubaa in uu dhumayo. maamulihii waa aqbalay codsigii odayga, sidaas darteeda iskoolkii baa la igu qoray.